بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu lbaqara. waxaa noogu soo dambaysay waxbixinta wanaagga iyo khayrka markaa ku jira, ummadduna inay da'bii caada ka dhigtaan oo ay bartaan inay jeebkooda wax ka bixiyaan. waxaa noogu soo dambaysay inuu ilaah yidhi haddaad sadaqaadka muujisaan markaad wax bixinaysaan nimco iyo wanaag baa ku jira, haddiise aad qarisaan oo fuqarrada aad siisaan taasaasa ka khayr badan. allana wuxuu idinkaga dhaafayaa gafafkiinnii qaladaadkiina, wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir. ilaahayna waxaad samaynaysaan khabiir buu ku yahay. laysa calayka hudaahum, yaan waxba la siin buu dhahay nebiga ilaa dadka ahlu kitaabka maahane. dadka ahlu diinka meehe sadaqa cid kale ha siinina. laysa calayka hudaahum buu soo dejiyey ilaahay. laysa ma ahaanin rasuulkii allow calayka dushaada hudaahum hanuunkooda, walaakina allaaha laakiinse ilaahay baa yahdi hanuuniya man yashaa'u qofkii uu doono. ilaahay cid allaala ciddii uu doono asagaa hanuuniyee, adiga hanuunkooda korkaaga ma ahaanin. wamaa tunfiquu waxaad nafaqaysaan oo aad bixisaan oo min khayrin khayr ah, falianfusikum nafafyaalkiinun bay u soo noqonaysaa. nafafyaalkiinaa ku intifaacaya sadaqada aad bixinaysaan. ogaada rabbi subxaana wa tacaala in abaalkeeda idinka uu idin siinaayo. in axsantum axsantum lianfusikum, man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a facalayha. intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa sadaqadan aan bixinayno, deriskan aan wanaajinayno, masaakiintan aan u wax qabanayno, intaasoo dhan nafci adig kuu soo noqonaya inuu yahay. wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah, falianfusikum nafafyaalkiinu u sugnaaday. wamaa tunfiquuna mana u nafaqaynaysaan oo u bixin maysaan, macnaha ha u bixinina, ila ibtiqaa'a wajhi illaahi, dalab aad dalbaysaan ilaahay wejigiisa maahane. inaad ku heshaan raadi ahaasho alleh, inaad ku heshaan janno iyo wanaag. ila ibtiqaa'a dalab aad ku dalbaysaanood ula jeedaan wajhi illaahi, ilaahay wejigiisa subxaana wa tacaala. ila ibtiqaa'a wajhi illaah. wamaa tunfiquu wixii aad nafaqaysaan oo aad bixisaan oo min khayrin khayr ah, lacag un keliya ma aha, wax walba oo wanaag ah. wejigaaga haddaad dadka wax ugu qabato, hadduu wax ku qabsamaayo, haddii qof khayr iyo meel uu gaari waayo aad gaarsiiso, kurbo iyo waxa haysaka aad ka qaado. wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah, hanti ah, xoolo ah, kelimad dayib ah yuwaffa ilaykum waa laydiin oofinayaa. xaggiina waa loo oofinayaa oo wax idinka dayacmayaa ma aha. wa antum adinkoo laa tudlamuuna aan laydin dulminaynin. wa antum laa tudlamuuna laydin dulmin maayo. wixii aad baxsateen iyo waxaad kasbateen iyo wixii khayr aad qabateen, wax aad dayacmaya ama aad weynaysaan oo idinka dhumayaa ma aha. lilfuqaraa'i fuqarada siiya, danyarta siiya buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. sadaqaadka waxaad siisaan fuqarada aladiina kuwaasoo uxsiruu la shiray, la xabisay fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa lagu xabisay. ilaahay jidkiisii jihaadka iyo diinta iyo salaada iyo akhrin qur'aankay ku jiraan. laa yastatiicuuna aan awoodi karin oo aan awoodaynin darban garaacitaan iyo safar iyo socosho fil ardi, arladay ku socdaan. inay waddan tagaan oo ay ka soo qaadaan tijaaro, waddan kale ay keenaan ay ku ganacsadaan. inay waddan kale tagaan, dhar ay ka soo raraan, bariis iyo baastay ka soo raraan. inay waxyaabaha sameeyaanay adduunka saa ugu garaacaanay ugu socdaan tijaaro darteed ma awoodi karaan. waa fuqaro, waxay haystaan ma laha. wardan yartaa wax ka siiya jidka alla ku xabisan. laa yastatiicuuna aan kari karin darban garaacitaan iyo safar fil ardi, dhulka ay ku safraan si ay tijaariyi ganacsi u raadsadaan. yaxsabuhum wuxuu u malaynahayaa aljaahilu midka jaahilka ah aghniyaa'a kuwa hodana ah, kuwa taajiriin ah ayuu moodayaa. yaxsabuhum aljaahilu
jaahilku wuxuu u malaynayaa dadka aan hantida haysanin aghniyaa'a kuwa deeqtoon. sababtu maxay tahay? waa min atacafufi, dhowrsanaanta darteed. wuu baahan yahay, ma quraacan, ma qadaynin, cashana gurigiisa ma taalo. ninka jaahilka ah hani buu u maleeyaa, waayo ma tuugsanaayo. baahi baa haysa ku dhihi maayo. maradiisaa cad, cimaamadiisaa cad, kobihiisaa cad, jidhkiisaa ifaya. waxay u malaynayaan tacafufkii dhowrsanaanta ku jira darteed midka jaahilka ah inay khaniyaal yihiin. tacrifuhum, waad aqoonsanaysaa oo waxaa lagu fahmayaa bisiimaahum, calaamaadahooda. calaamaadka ay leeyihiin yaa dadkaa lagu fahmaa. laa yas'aluuna annaasa, dadka ma su'aalanayaan ilxaafan, ku celcelin. inay bareer intay u soo baxaan ay ku celceliyaan, dadkay su'aasha ku badiyaan, saa wax uma weydiistaan. laa yas'aluuna annaasa ilxaafan. wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah, fa ina allaaha, ilaahay, bihi shaygaa khayrkii aad bixiseen, caliimun, alla ku cilmi badan waaye. aad baa loogu soo celcelinayaa. dammaan inay tahay baa laguu tilmaamayaa. alla agtiisii bangiga raxmaanka inaad ku shubataa laguu tilmaamayaa. rasiid fiicanoon lagaa qiyaanayn inaad haysataa laguu tilmaamayaa. boqor caadil ah oo agtiisa aan lagu qadayn inay kuu yaalaan, agtiisa ay kuu yaalaan, waxaad baxsataa laguu tilmaamayaa. aayaddu waxay tilmaamaysaa fuqarada danyarta ah. waa abuu hurayra iyo ragga la midka ah. wuxuu yidhi waxaan ku dhaci jiray inta u dhaxaysa mimbarka nebiga iyo guriga caaisha, baahi daraaddeed. mid baa imaanaya, markaasuu madax iiga istaagaya. wuu leeyahay kanuu jinool waay. markaasaan leeyahay maa bii min juuc, warwaaliguma sugna. maa bii ila juuc, baahi mee wax kale ima hayso. raggaa sarajoogga salaada ka dhici jiray baahi daraaddeed. walaalayaal, istaaguu ka dhacaya baahi daraaddeed. markaasaa markuu rasuulku salaada ka baxo, ilin rigtooda iyo jugtooduu maqlahayay, uu leeyahay haddii aad ogaan lahaydeen fadliga iyo wanaagga, barwaaqada, abaalgudka ilaahay agtiisa idiin yaala, waxaad jeclaan lahaydeen in faqriga laydiin siyaadiyo. laakiin annagu aad baan u necebnahay. laakiin markuu aad kaaga sii batana dhibkiisuu markaa leeyahay. abuu hurayra wuxuu yidhi, waxaan fadhiisanahay jidkay muslimiintu soo maraan. mar kasta oo qof soo marana waxaan su'aalayaa aayad sadaqada tilmaamayso. maan aqaanaa aayadda oo inaan cilmi raadsanaya ma aha. waxaan rabaa in lay garto. wuxuu diidayaa baahi baa hayse wax isiya inuu dhaho, sida ilaahay tilmaamahayo, tacrifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna annaasa ilxaafan. ilxaafnimo kuma weydiisanayaan, ilfuurnimii ilkakarnimo kuma weydiisanayaan. masaakiinta maanta joogtoo kale jeebkaagu inay u dhacaanay ku caayaanoo dhibaatay ku gaarsiiyaan bay sigayaan. mararka gobol ka mida haddaad siiso 100 shilin qaar baa kugu soo tuura. makaasaa miskiin ah oo ku dhahay maxaggeenu geynaa waxaan intuu wejiga kaaga soo tuuro. sidaa darteed raggan fiiriya, ragga waa suu xadiisku tilmaamay, laysa almaskiin, maskiin ma aha midka dadka dawarsadee albaabada istaaga ee timir iyo 2 timir, luqmad iyo luqmad la siiyey celiso. laakiin maskiinka xaqiiqda ah waa midka aamusan ee aan dadka weydiisanayn oo aan la fahmayn. haddii la fahmi lahaa waa lagu sadaqaysan lahaa. abuu hurayra wuxuu yidhi, dadka waxaan weydiisanayay su'aal wax bixinta ku saabsan. way ii jawaabahayaan oo aayaddii bay ii akhrinayaan, wayna iga dhaqaaqayaan. abuubakar baa isoo maray, cumar baa isoo maray, kulli saasoo kale. ilaa nebi moxamed isoo maray sala allahu calayhi wasalam. nebigu wuxuu gartay ujeeddadayda. abaa hurayra soo bax buu i yidhi. guriga ayuu i geeyey. bakeeri caana ah uusan horayna u ogayn ayaa miiska saarnaa. goormee la keenay? yaana keenay buu yidhi. waa hadiyad. gabadhii reer ansaarada ahayd ee reer madiina mid ka mid ah ayaa kuu soo hadiyaysay. nebiga marka hadiye loo keeno waxna waa ka cuni jiray, ahlu sufana wax buu ka siin jiray. haddii laakiin sadaqa loo keeno waxba kama taaban jirin, reer ahlu sufuu u diri jiray. abuu hurayra wuxuu dhaha, rasuulku wuxuu ii yidhi, abaa hurayrow bax ahlu sufoo dhan iigu soo yeer, ii soo wac. inuu caanaha siiyuu doonayaa. abaa hurayra wuxuu yidhi, hadalkaa waa i xumeeyey. sababtu waxay tahay ahlu sufa muxuu ka deeqayaa koobkan caanaha ah? anaa fiicnaa inaan cabo cabitaan aan ku xoogaysto, waayo baahi adag baa haysay.
amarka nebigana waa laabudoo lama diidi karo. intaa waxaa iiga darnaa buu yidhi hadday ahlu sufa yimaadaan anuu qaybi idhahaa haddana wamaa casaabii maxuu mudan inuu iga soo gaaro haddaan qaybiyo wuu qabaaye. waa baxayo raggii buu soo wacay. abaa hurayra galaaska caanaa qaada qaybi waatuu ka baqayso maaha. mid buu siiyaa waa dhargaa wuu soo celiyaa, kii kaluu siiyaa wuu dhargaa wuu soo celiyaa. koobka caanaa weli waa sidiisii. dhammaan way wada cabeen. rasuulkan u keenay buu yidhi abaa hurayrow anii adaa haray soo maah? qaala nacam haa yaa rasuula allah. ijlis ee cab buu yidhi, fadhiisee cab. waa fadhiistay wuu cabay, wuu soo celiyey. rasuulka allow bas waay ku darsaa layidhi mar labaad cab. wuu cabay wuu soo celiyey. yaa rasuulallah bas waay ku darsaa layidhi haddana cab. ilaa uu yidhi laa waaladii bacaka bilxaqi, rasuulkii allow maya, macbuudkii xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartaye meel qaadama haya buu dhahay caanihii. rasuulku wuu qoslay sal alla calah wasalam. intaas kadib buu bismillaahi dhahay, nebiguna cabay wixii ka soo haray. marka raggaa wax siiya fa ina allaha bihi caliim. aladiina kuwii yunfiquuna nafaqaynahaya amwaalahum maalalkooda, dadka xoolahooda bixinaya billeyli waannahaari, sadaqada wakhti ma laha, habeen iyo maalin way socotaa. siran wacalaaniya, si sir ah iyo si muuqata labadaba u bixinayay. wacalaaniyatan falahum waxay leeyihiin ajruhum, ajirkoodu waxay ku leeyihiin cinda rabbihim, rabbigood agtiisa. walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma aha, walaa hum yaxzanuuna, mana aha kuwii murgoonaya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. ma cabsanayaan mana murgoonayaan. waa dadka xoolaha intay bixiyeen haddana habeen iyo maalin bixiyey, siri iyo si muuqata u bixiyey, ajirkooda alla agtiisay ku leeyihiin, mana baqayaan waxa ka horeeya, mana murugoonayaan waxay markaa ka tegayaan. aladiina ya'kuluuna alriba, meeshani waxaannu ka gelaynaa ribada iyo dhibaatada ay leedahay. waxaana loo baahaya inta layska ilaalin karo ribada in laga fogaado. aladiina kubi ya'kuluuna cunahayay alribaa, ribadana laa yaquumuuna kama soo istaagayaan buu yidhi ilaahay qabriga marka laga soo baxaya ilaa kamaa yaquumu, ilaa suu u soo kaco uu u soo istaago oo kale maahane. alladii midka yatakhabatuhu shaytaanu, shaydaanku uu ku taabtay min almasi waalida. mid asagoo dhan waalan oo dhacdhacahaya suu u socdo oo shaydaanku waalida uu ku taabtay oo kale. kuwaasay rubisaar cunayaalka iyo dadka ribada cuna saasoo kaley u soo baxayaan min almasi. daalika arrintaana waxay tahay biannahum ay bisababi annahum ayagu ahaasho ay ahaayeen sababteeda qaaluu kuwa yidhi innama albaycu baycu midlu alribaa, waa ribadoo kale. haddii beeca la xalaaleeyey beecu diintu oggolaatay, ribada iyo beecu waa isku mid ayay yidhaahdeen. qaaluu innama albaycu midlu alribaa, ilaahay baa u jawaabay oo yidhi wa axalla allaahu, ilaahay ayaa xalaaleeyey albeeca beeca, wa xarama alribaa, ribadana ilaahay baa xaaraantinimeeyey subxaana wa tacaala. beecu waa xalaal oo ilaahay baa xalaaleeyey, ribadana ilaahay baa xaaraantinimeeyey. beeca waxaa loo xalaaleeyey waa maslaxada dadka, waa shay nafci ugu jira. ribada waxa loo xaaraantinimayna waa dhibaata iyo rafaad iyo kedid bay ummaddu ku tahay. faman jaa'ahu, qofkay u timaada mawcidatun wacdi iyo waano oo min rabbihi, rabbigii xaggiisa ka ahaatay, oo fantahaa ka hara oo ka joogsada, falahu maa salafa, wixii tegay ayuu leeyahay. wa amruhu, amarkiisuna ila allaahi, allah loo celin. waman caada, qofkiisa dib ugu laabta ribadii markii wacdigii iyo waanadii iyo aayaddii ay timid kadib, fa ulaa'ika kuwa asxaabu nnaari, naarta asxaabteeda waaye, hum ayagu fiiha, naarta gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan. yamxaqu allaahu alribaa, ilaahay ribada wuu tirtiray oo barakaduu ka qaaday. wayurbi asadaqaat, sadaqaadkana wuu koriyey subxaana wa tacaala. wayurbi, wuxuu barbaariyaa ilaahay uu badiyaa alsadaqaati. wallaahu ilaahayna laa yuxibbu, ma jecla kulla kafaarin, kaafirnimo badana dhammaantii, afiimin oo dembiila ah. ilaahay ribada barakaduu ka tirtiraa subxaana wa tacaala, si kasta ha u badato.
meel kasta ha kaa taalo, say kasta u hel, baraka ma laha. yamxaqu allaahu, ilaahay wuu tirtirayaa alriba, ribada barakaduu ka tiraa, wayurbi, wuxuu barbaarin ilaahay uu badinayaa alsadaqaat, wallaahu ilaahayna laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin kaafirnimo badana dhammaantii afiimin ee dembiila ah. ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaalaha suusuuban ee wanwanaagsan, oo wa aqaamuu asalaata salaada oogay, oo wa aatawu asakaata sakadana gutay, lahum waxaa u sugnaado ay leeyihiin ajruhum ajirkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin. walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ma aha, walaa hum yaxzanuuna kuwa murgoonayana ma ahan buu yidhi ilaahay. ee yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyayow, ittaquu llaaha alla ka cabsada, oo wadaruu isaga taga, warka taga oo dhaafa maa baqiya wixii baaqi noqdoo haraan noqda oo min alribaa ribada ka mid ah, in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniin ah oo rabbi rumaysan, ribada faraha ka qaada. fain lam tafcaluu haddaadan samayn oo arrintaa aad joojin waysaanna, fa'danuu ogaada bixarbin dagaal inuu idinku soo socdo, xarbigaasoo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatii, wa rasuulihi rasuulkiisa. ma sahlana qofkuu rabbi yidhi anaa la xarbinaya, alla rabbiyaa iska celin kara, ilaahay yaa la dagaalami kara. fa'danuu bixarbin dagaal oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday, u diyaargarooba oo ogaada, iyo wa rasuulihi. wain tubtum haddii aad towba keentaanna, falakum waxaa idiin sugnaaday oo aad leedihiin ru'uusu amwaalikum maalalkiina ru'uustooda, raasumaalkiina ayaad leedihiin. intay dadka wax u daymiyaan baa markii bishii la gaariyey wakhtigii mawcidka oo ay bixin waayaan muddaa loogu darayaa, wixiina waa la siyaadinayaa. war intii maalkiina ru'uustooda ahaa uunbaad leedihiin. laa tadlimuuna wax dulmin maysaan, walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmin maayo, idinkana wax laydinka dulminayo laydinka nusqaaminayo ma jiro, idinkana waxa dulminina. qofka aad wax u daymiso haddii muddadii uu bixin waayo, ribaha dul saarinee, wa in kaana haddii uu ahaaday midkii deynta lagu lahaa, duu cusratin mid culays u saaxiib ah. duu cusra cusri iyo culays ayuu u saaxiib yahay, oo xilligii deynta uu bixin lahaa ayuu gabay oo waa bixin waayey. fa nadiratun nadira iyo sugitaan baa korkiisa ahaatay kii deynta lahaa, inuu u kaadiyo ilaa maysaratin, ilaa makaano fudeed uu ka gaarahayo, ilaa maysara iyo sahal uu ka gaarahayo. wa an tasaddaquu inaad u sadaqaysataan, ood ku sadaqaysataan, ood iska saamaxdaan, ood iska cafisaanaana, khayru lakum idin khayr badan. intaad 24 saac ribo aad dul saari lahaydeen, wax culus uu bixin waaye ilaa uu ka dhinto, cimrigiisu dhammaado, deyn dushiisa ahaatoo madaxaa kufurta noqoto, intii aad dusha ka saari lahaydeen iska cafiyo iska dhaafa, amase suga intii makaanu sahal uu ka gaaro. wa an tasaddaquu inaad sadaqaysataan, ood isaga sadaqaysataan deyntii, ood ka cafisaan. waayo qofkii qof muslim ah kurbahaysay ka fayda, ilaahay baa kurba adduunito aakhira ka qaadaya. saa darteed buu ilaah yidhi, wa an tasaddaquu khayru lakum in kuntum taclamuuna kuwa og haddaad tihiin. wattaquu ka cabsada yowman maalin, turjacuuna laydiin celinayo, fiihi maalintaa gudaheeda ila allaahi alla xaggiisa. uma intaa ka bacdina tuwafaa loo oofinayo kullu nafsin naf kastana maa kasabad waxay kasbatay, wahum laa yudlamuuna ayagoon la dulminayn, ayagoon la dulminaynin. qof kasta wixii uu kasbaday la siinahaya. falaa yakhaafu baksan walaa rahaqan, xadgudub iyo dembi uusan samayn in dusha laga saarana ka baqi maayo, wax uu shaqaystay in laga gooyana laga cabsan maayo maalinta. wattaquu aayadda waxaa lagu tilmaamaa ama la yidhaahdaa waa aayaddii ugu dambaysay qur'aan soo degay. wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. qur'aan ka dambeeyey ma jirin. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow, idaa tadaayantum markaad wax isku dayminaysaan bidaynin dayn, daynkaasoo ilaa ajalin
wakhti intii laga gaaro ah musamman la magacaabay oo wakhtigii hebel ayaad bixinaysaa daynta lays yidhaahdo faktubuuhu qora. markaad wax isku dayminaysaan dayn ilaa ajalin musamman intii wakhti la magacaabo laga gaarayana dayntu ay tahay faktubuuhu qora. walyaktub ha qora daynta baynakum mid baynkiina ahaaday kaatibun oo karaani ah, mid kaatib ahoo qoraalka aad ugu fiican bilcadli si cadaalad ah ha ku qoro. walaa ya'ba yuusan diidin kaatibun midka kaatibkee wax qoraaga ah an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu allahu suu ilaahay u baray. ilaahay baa kitaabadan iyo qoraalkan baraye dadku waa inuu u kala qoraa kamaa callamahu allah. falyaktub ha qora kaatibka walyumli liladii kiina ha meeriyo oo ha u yeeriyo wuxuu qori lahaa calayhi dushiisa alxaqu xaqa uu ahaa. labada qofood ee wax isku daymisay waxaa yeerinaya oo hadalka laga dhagaysanayaa kan wax loo daymiyey anoo hebel hebel ah, hebel hebel waxa uu ii daymiyey oo aan ka amahsaday saacad hebel iyo taariikh hebel lacag intaa iyo intaa gaaraysaa. saasoo kaleu odhanaya. walyumli liladii kiina ha meeriyo calayhi korkiisa alxaqu xaqa uu ahaa. walyattaqi illaaha ilaahayna ha ka cabsado rabbahu rabbigii xaal uu yahay. oo walaa yabkhas yuusan ka nusqaaminin uusan ka bakhsinin minhu dayntii xaggeeda shay-an waxba. 1 milyan ayadoo ay ahayd yuusan dhihin 900 oo kun ayay lacagtu ahayd laygu leeyahay. 1 milyan iyo bar baa loo daymiyey yuusan dhihin 1 milyan baa la ii daymiyey. walaa yabkhas minhu shay-a fain kaana haddii uu yahay alladii midka calayhi korkiisa alxaqu xaqa uu yahay, midka asaga daynta lagu leeyahay haddii uu yahay safiihan mid safiih ah oo doqon ah, mid safiih ah oo maangaab ah, aw daciifan ama mid daciif ahoo tabar daran, ow laa yastatiicu ama uusan kari karinba an yumilla inuu yeeriyo. ninkii daynta lagu lahaa inuu yeeriyaa la rabaa. hadduu safiih yahay ama daciif yahay, ow laa yastatiicu ama uusan kari karin an yumilla inuu yeeriyo huwa asaga, falyumlil ha u yeeriyo. oo waxaa meerinayuu deynta sheegahaya weliyuhu weligiisa. ninka wakiilka ka ah ayaa bilcadli si cadaalad ah ku meyrinaya. wastashhiduu u shahiideeyoo markhaati uga dhiga daynta marka la qoraayo shahiidayni 2 markhaati oo min rijaalikum raggiina ka mid ah. 2 nin oo rag ah ha marag qacaanoo daynta marka la qoraayo 2daa nin markhaati ha looga dhigo warqaddii ha lagu qoro. wastashhiduu u markhaati geliya shahiidayni 2 markhaati oo min rijaalikum raggiina ka mid ah. fain lam yakuunaa haddaysan ahaanin oo la waayo rajulayni 2 nin farajulun nin ayaa markhaati noqonaya iyo wamra'ataani 2 naagood oo booska halka nin ka maqan yahay 2 gabdhood baa lagu beddelayaa. oo miman tardawna kuwa aad uga qanacsan tihiin raallina aad uga tihiin ka mid ah min ashuhadaa'i xagga markhaati kaca. naag walba ma ahee waa miman tardawna min ashuhadaa. sababta booska ninka ka maqan yahay 2 gabdhood loogu beddela waxay tahay an tadilla hadday ilowday dhumiso ixdaahumaa 2dii naagood ee markhaati kacay mid ka mid ah fatudakira waa inay xusuusataa ixdaahuma alukhraa labadooda tii dambe. mid hadday ilowdata kale inay xusuusnaato oo markaa lagu kabo. walaa ya'ba yuusan diidin ashuhadaa'u markhaatiga idaa maa ducuu haddii loo yeedho. kaalay wax dayn baa la qorayaa, dad baa wax isku dayminayee markhaati noqda haddii laydin dhaho shuhaday ha diidina. walaa ya'ba yuusan diidin ashuhadaa'u markhaatigu idaa maa ducuu haddii loo yeedho. walaa tas'amuu hana ka noogina an taktubuuhu inaad qortaan dayntii sagiiran aw kabiiran yaraan iyo badnaan intaba, ama ha yaraato ama ha badato. inaad daynta qortaan ilaan bani aadamka maskaxdiisu waa iska daciif, way iloobi kartaa. saa darteed baa warqadda iyo qalinka in lagu qoro yaa ilaalin iyo dhowrnaasasho badane. walaa tas'amuu ha ka noogina dadow
an taktubuuhu inaad qortaan daynta sagiiran wax yar aw kabiiran ama wax weynba. 1 milyan iyo 100 milyan marka la qoraayo laysku dayminayo isku si markaa u qora ilaa ajalihi wakhtigiisa intii laga gaaro. daalikum kiina ayaa aqsadu toosnaasho badan cinda allaahi alla agtiisa, wa aqwamu ayadaa habboon oo ku fiican lishahaadati xagga marag furidda waa in la qoro. wa adanaa ayadaa u dhow allaa tartaabuu inaydaan shakinin. shaki ma imaanaya, buuggii unbaa lala soo baxaya. war meeqaad igu lahayd? wallaahi ma ogi. intuu madaxa xoqdo kii wax loo deymiyey waaba dheeshiisiiba. wallaahi anigana ma ogi buu leeyahay. intaysan saa dhicin in ha yaraato ama ha badnaatee la qoro ilaa wakhtiga yaa aqsad ahoo fiican cinda allaahi alla agtiisa, wa aqwamu ayadaa ku toosnaasho badan lishahaadati xagga marag furka. wa adanaa ayadaa ugu dhow allaa tartaabuu inaydan shakinin ilaa an takuuna inay tahay maahana tijaaratan tijaaro iyo wax kala gadsi xaadiratan xaadir ah. waxa aan la qoraynin waxa la qorhayo ama waxa la kala qaadanayo haddii ay tahay tijaaro xaadir ahoo markaa goobjoog ah, tudiiruunaha aad isku wareejinaysaan baynakum dhexdiina oo aad isdhaafsanaysaan. meeqa waaye loorkaa sokorta ah? waa 500. loorkii sokortaad u soo dhigtay lacagtii buu bixiyey. hadday xaadir saasoo kale tahay oo tudiiruunaha aad isdhaafsanaysaan baynakum dhexdiinaad isku wareejinaysaan, falaysa calaykum junaaxun korkiina dembi ma aha allaa taktubuuha inaydan qorin. taa haddaad qori waysaan dhib kuma sugna. laakiin midda kale ee dayntii la kala qaadanayo taa waa inaad qortaan allaa taktubuuha. wa ashhiduu markhaatiyeeya ayada laftigeeda idaa tabaayactum markaad wax kala gadanaysaan. waxyaabaha waaweynka sida guryaha iyo gawaarida maanta la isticmaalaa oo marag loo sameeyaa. inta kale laakiin dadku way iska fududaystaan. wa ashhiduu idaa tabaayactum markaad wax kala gadanaysaan markhaati sameeya. walaa yudaara la dhibi maayo oo yaan la dhibin kaatibun kaatibkii karaaniga wax qoraya, walaa shahiidun iyo midka marag furaayaba. qor tir ha dhihina. shahiidkii markhaatigana yaan la dhibin. wa in tafcaluu haddaad samaysaan oo aad dhibtaan kaatib wax qorayii shahiidba, fainnahu fusuuqun waa faasikhnimee, waa taaca ka bax waayo xaaladdaa bikum idinkay idin tahay. wattaquu llaaha alla ka cabsada subxaana wa tacaala. wayucallimukum allaahu ilaahayna wuu idin barayaaye. wax kastoo cilmi ah oo aad u baahataan buu ilaahay idin barayaa ee ilaahay ka cabsada. wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay kasta caliimun alla ku cilmi badan buu ahaaday subxaana wa tacaala. ilaahay shay kasta caalim buu ku yahay. hadday xaadir tahay oy ganacsi oo markaa la kala gadanayo dhibi markaa kuma sugna, waxba la qori maayo. laakiin mar kastoo wax la kala gadanaya marag sameeya buu yidhi ilaahay. xaaladaasaa la tilmaamayaa. idan dayntu waa inay saa ahaato, waa in habkaa loo qoraa. qolaa waxay dhaheen wax saas u sii weyn ma noqonaysa, way iska fiican tahay. balse haddii layska daayo, xataa qaar baaba tilmaamay inay nasakh tahayoo fa in amina bacdukum bacdan bay leeyihiin. haddii qaarkiin qaarka kale uu aamino falyu'addi aladii i'tumina amaanatahu. waa haddaanba la qorin oo markaa lays aamino. idan dadka muslimiinta mucaamalaadka saasaa loogu talagalay. waa in diin haddii la kala qaadanayo muddadeeda la qoraa. waa in khayrkii wanaagga lagu dadaalaa. waa in qofka diinta lagu leeyahay yeeriyaa. haddii waa in 2 markhaatiyo raga la sameeyaa. haddii 2 nin la waayo booska ninka ka maqan yahay 2 gabdhood baa lagu bedelayaa. xaaladaasoo dhan baa ugu fiican uguna khayr badan sida ilaahay tilmaamayo. wattaquu llaaha alla ka cabsada. wayucallimukum allaahu idan ilaahay markaad ka baqdaan buu alla cilmi idin barayaa. cilmiga waxaa lagu bartaa alla ka cabsiga. aayadba markaad fasiirkeeda ogaata ku dhaqan cilmi baa kuu siyaadaye. cilmiga in la barta keliya ma ahee ku dhaqankaa cilmi la yidhaahdaa. alla ka cabsigaa cilmi la yidhaahdaa. cilmigana alla ka cabsiguu ku bataa. wallaahu ilaahayna bikulli shay kasta iyo wax walba caliimun caalim buu ku yahay.
wax walba ilaahay guntooda ayuu og yahay. dadow shay walba bacdamuu ilaahay og yahay. dadaaloo waxaad samaynaysaan wax fiican ka dhigta si ilaahay khayr badan idiin siiya subxaana wa tacaala. awaamirta allana ku dadaala. wain kuntum calىa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda. wabiاllaahi towfiiq. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.